نحوك في اشتياق مركبي يممت نحوك في اشتياق مركبي بان اشتياقك في عيون معذبي يا قصة العشق التي لم تكتبي غلب اصطباري مذ تبدى حسنها وظننت أني ويحها لم أغلب غلب اصطباري مذ تبدى حسنها وظننت أني ويحها لم أغلب أشربت حبك في صبايا عذوبة لهفي على ذاك الذي لم يشرب إن يمم العشاق وأشرعة الهوى يممت نحوك في اشتياق مركبي way la lugeeyeen magaaladii markay u dhawaadeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي بمهد مهد إسقى يوسقناتي مرهرية مردن بابا الشكر جيس نمكو بكرينه نعمدي سنمكو بكرينه نقصانته نمعد إلهي ونسينا الله ينقهي عاوة وهبين خميسة واللبي اللباتن كيد القعداء وحرنتي إلهي سبحانه وتعالى كان سنوسي شيخنا شيخ حسين علي سؤال إنه مرتين نقول نقضي مساجد كان عالمتان سو كلمة رنتي نوغسو جيدية دينتين يا الدنيا دينا بان فعلا وحرنتي شيخ أنكو الرئيسين لها وحا إلهي يقول يا نقا إذن كنا مرخاتي هذه نقضنتان علماء أنا آدك أوتش على هاي إنه شيخ سيكوتش إلهي درتنا أوتش على هذا إساقي علماء بدنا وكلام قضبك إذن كنا أوتش سماها الله يبارك فيكم waayo waata aynu ku helina khayrka iyo ajriga qodobka labaad ee runtii sheekhan aan kaga helaa runtii waxa weeye waxaynu u baahannahay qalbiga cid la hadasha qalbiga afka uma baahnayn wacdi aan afka ka soo boodo ma doonayna mid qalbiga ayaynu doonaynaa oo qulubta la hadla runtii culimada aan ka helay ayuu ku jiraa ee qulubta la hadasha ee aniga dareen wanaagsan igu sameeyay qodobka saddexaad sheekhu aniga gacan weyn bay igu leeyo markaan Jabuuti ugu tago anigu way soo dhaweeya laakiin anuma soo dhaweeyo marka laakiin sheekh alxamdulillah jamaahiirtaasi aday caawa ku hor fadhiyaan alxamdulillah intaasi khayr bay noqon doontaa laakiin abaalka culimadu ma gudi karno ta afraad ay ugu dambaysa sheekhu markii ugu horeysay de masaajidka kelmada ka jeediyay maaha sheekhu in badan buu de inoo jeediyay laakiin tatajaddad mar walo culimadu ku timaado waxay ku keenaysaa khayr inuu ku kordho isaga culimada kaleba waa ku soo dhaweynaynaa masaajidka khayrkeenu ku soo dhaweynaynaa waa ka faa'iideysanaynaa sheekhana waxaan leenahay haddii isagoo musaafir ama mashquulsana aynu soo qabannay sheekh raalli baad ahaanaysaa laakiin si ajri weyn baad helaysaa markaa sheekhaynu insha allah kelmadda ka dhagaysan doonaa wajazaakum allahu khayraa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجد كجامعة إنه سو كل ميي والله كل جين وحن دوننا ما ركتنا إلهي ندوانه أئمتنا يا علماءنا أخيارتا خير كبدن لمساجد كإنه سو دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا نباحنا إلهي ندوانه يعني إلهي ودوانه وأنا آخرتنا أودي أرجرونه وأدوية أنك قاعدنا diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaa iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdillaahi bni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa. diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low akartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo, uu dhimashada xasuusiyo, uu aakhirada xasuusiyo. innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan, zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa, aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo, inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo. waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso ood iga heli doontaa. nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam.
markii qabrigii la geliyay iilka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu alayhi salatu wasalaam walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya hadda su'aashii qabriga la weydiinaya bu nabigu alayhi salatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka ma diinuka mar ali marka qofka inagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nabigu alayhi salatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfatanaan dadna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaan wali yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyada adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayay ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nabiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu alladhiina aamanuu bilqawli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhirah wa yawma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacada salaada iyo manfacada thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayyabaat wax ka qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafna canka ghida'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa ومن آياته الليل والنهار habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdaa maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaa baa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may
سيادو قرانيسا قلبك أيا قرانايا القلب يدرك الحقائق بين هذا العلماء قلبك أيا حقيقة صوتها بنايا شيء قيمها لها والروح دويان روح دو غيب ولا قارية ما أركي كريسد لكن إن جرت واحد كو قرانيسا حركات الأعضاء عالم كان هذا الصوت دن وحويان وكالجسد ويان نظام كان عالم كودن وحا كوهوس جرا نظام كإلهي النظام الغيب ليدادو بركا مؤمن كي إيمان كقبي انتو أدوية جوغي بإله علاقة لها سؤال شوه الرئيس مركا ليدا من ربك وعلانيك الربكي والله بوليه مهرد دايدو إمن ربينين الله باي الربينيي دكانكو إمن ربينين إلهي باي الربينيي بارتو إمن ربينين إلهي باي الربينيي دولتو إمن ربينين إلهي باي الربينيي حوله إمن ربينين إلهي باي الربينيي أنو كمان نولين وحنا الدوية الدولية الله داني بل أمرك إلهي بانكون نولا لكن سؤال شهادتك ما أنت هذه مقرفون لقاتوا لنا ورمحات كون نوشهي نول بحالك أي أسبابته أي كسو قشر دخل جيسو هلكو كسو قلبه مركبه كون شاقي مدمحوك ورن والله مهرد يرو هلكا كنت الله نكون نولا مدوحوك ورن عيال كيبا ديبدا وبحيو كواسا كون نولا هدينا بحين ما بنولانين مدمحوك ورن بير يربان كون نولا بير مدوحوك ورن أقل يربان نو كريسانو كون نولا ريجي بوتين وحيد هذا اللترات كيبا كون نولا اللترات كي معاشكي مي وين ترى هذا إلهي أمر كيسان كون نولا أنكو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرتاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاجي مهرد هذا يسوق كاجن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكإيمان يا وأين أتقرت الرب هو الله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيستوى إلهي ويان كبريادة متيستوى إلهي ويان كرجاها متيستوى إلهي ويان كعبسدة متيستوى إلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو باهداد كليجي وشهو ربي جاي الله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقمو وحكي لما أمن سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نيكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعد ما يسترتب النبي عليه الصلاة والسلام وأين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودع رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب وننكي كورف ديبو قنوفو جيغا لغا تفاي مرقاسو علي قنوفا لغو تفاي وجيغا لغا تفاي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو تفاي علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yiri lillahiyad waxaan qaban Ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan Ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici Ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin Ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg Ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan Ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la horkeeni oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminka leeyahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay
أفرشوه من الجنة فراش جنة كسو قاضوا أققلا والبسوه من الجنة در جنة كسو قاضوا أحدا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وقفر جنة هلك هكذا وذيب الأورانية دول كات كو عليسي ميت دول كان كو أصني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كات كو أصني ودول كدحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق 7 سماوات هل كاس قفك مؤمنكم جنة سيكدا ونيا sida inaku ba aaladan yar imika aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul mawt wa ahlul jannati laa yanaamuun baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada hadday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlul jannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكay ka soo bixi doonaan deedna xaq Ilaahay ba loo soo ururin doonaa markaas qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyo hurdadii naga soo kiciyay waan jiifnay waan hurdnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu waja'alna al-layla wan-nahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي يدي آية الليل آية النهار نولشان الدوية أن كن نولهي ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدوية انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا اللوغة ديغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله
وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda laa ilaaha illa allah ehelkeega noqda allah inaga dhigo. qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan. maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan. waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan. ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday. rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan. dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara joogga waa yoom. qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin. yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qadamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة. habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas. qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya. وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود. ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا toban kun oo sanana xisaabta ku dhammaan doonta. nin carabi oo reer baadiya ayaa sara ka cooyay yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona. markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona. markaa ninkii carabiga intuu sii jeestay buu yidhi najawna wa rabbil kacba kacbada rabbigeega ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad galnay buu yidhi. markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg. wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi. waa kariim kariim. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي قولي إنك ماذا مجرو هدو جرين أبو رسول كل أيهي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عيد وكل أفعلين ليس مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدك تو اجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو اجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو اجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسما يستبو نبي يقول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن هكو هالله كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خير كعضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان
markaasay caaisha tiri radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jiro buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati طariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adri maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhraduu eegaa meeshuu marayo aakhraduu eegayaa meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay dharaariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mida ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan
waxay yidhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaanaad eegaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasamadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatlqalbi bay culammadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culammadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhiradoo inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajiddooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiye buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkayna fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari raac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi ina mari raac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey
وكل عليه بوكير يا ابن عمر سوق وادنا جيسا مالين والبا بدعنا كما سو يبستد بدعنا وما يب جيسد بدعنا ما سو بايعدد ما لا هدتكم فرديانا نما فريسيد ورالكن إن فريسي ورالكن نوجو شيء بوكيدي ورالكن دين تنوجو بر شيء هذا صحابة دين بيهيد مرجع ابن عمر باكويد ورا كان على وش بورنلي إنما نقض من أجل السلام وحنوك الله إن وحويان دتك إن السلام نوم بنوك الله إن بوكيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله إن والدعاء ويان دعاء بنوك الله إن مسلمين تنو دعينا يكونوا إنه دعينا بقول قفانو دعينا بقول كاسوي إنه جوابين والدعاء لقى يا بابا بقول كأولياء إلهي أنت يكون حجرته إن إلهي دعاء ضد النوع أقبله صلاة المسلمين تلسيوا معي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتك إلهي كركاها هذا كي كلا مسلم كواحد كليه أديقنا نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركات إلهي كركاها هذا بكليه سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قف سلامينا لما بقول قف سلامتا أمد سلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابته إن سلامتا مسلمين تعالى دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبض هلان أو نحريستي هلان أو بركتنا هلان إنكم بقاش كيو بدا عد يا دويدا لوك الله هم ويانا سنة النبي لوك الله هاي ولقون ولا نجمر دعسنا ما أنت سلامتا صلوا قدر جيا علي بن أبي طالب إنه يمدو كيدي صاحب العيال بانا هي معيشتي بيقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كهدا أوين مركز لا صعته آيات هر صعتها بوكيدي هذا هر مرتاع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين اللبد هذا والد الله يدم بدافع أنا دو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاقه كاحد واتاس لبد والد دعاء كوب درب أرزاقه كوفر مية ما له هاي نكوي مكوح مكيا جاكنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا برزقك كده حركيين والدك الدعاء دي سووا دعائين برزقك كده حركيين استغفرت أي بدنا يا برزقك كده حركيين صلاة الضحى أي تكنا يا برزقك كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جمعين لتكنا يا مسكين زحمة يعيدك كده عيا دينتن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدت ونقبل أبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كودرنا كل بانو marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli وايو لأن مجتمع وحي نقول مجتمع آخر كل حساب تمايا سيدي لبادين حديث النبي قلنا وقول شيء في السنن نبى ندل كإيبيي دل كي مركو قتي ودل بارد بوها أو فلاي مركا خزن الذهب مركا وقصوا بحذا جر من الذهب أو قاتي أو لا أرضو نكي لهاب أو كانوا كيري ودل كذي إيبي سي ذهب كإنت لك بقى صباحه ما له هذا اللي سنة إيجا قاضي بكيري markaas wina may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iskale iska qaada buu ka yiri war waxaan adiga ale iga qaado inaga zamankeena waa maxay war waxaan aniga ale isii weeyaan teen waxa ku dagaalamayno dhulkan aniga ale gurigan aniga laha meheradan aniga laha waxaan aniga laha bas ku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga alle iga hoo iyo ka qaadan maayo
ما dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adiga iska leh iga qaado waxaan maliya anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee anna kaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahiduha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaan oo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay jirto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisii addoon ka mid u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dharr al-Ghifari u gee hadduu lacagtaa Abu Dharr hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Dharrna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo Uthman bin Affan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dharr al-Ghifariy radiyallahu anhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa ma hinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sidaa
وان كقاضي بل ورن إسقى كورن دار الخلافة كورن مسجد النبي كورن مسلمين تحلقوا كورن مركوا كورن مي أيوري لعقتنا ويسود يبوا وحيري أبو در أوجي لعقتاس مركز المحان كدقة عري ده هو كلمة استأدوية ديسة markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiyay bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan usmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhire midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay
israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة سوق يقع نوح كوي بن كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبري با سعودة كلها تشين هاو سعودة حاجة سعودنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal inta yar aan joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadano oo diinteena ha baranno oo diinteena ha ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي قولي والزمن النبي محمد سي شيغي كون يا 400 سنه كهر نيجا دينتا مالنتا يرادا وان حجسن waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yiri bulshadaad ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya مجتمع ومجتمع قفكو هدوير هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألون قبصده إلهي ودب يريم ويانا مركز زمن هذاك بان كجرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين تاع علماء مروا بين نوقو باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعية الله قبنا يا أمد الله كل لو فكر يا ورد ذلك الدين هذا ما أنت عالم كالسعودة للربع عمد إنه إنه علماء أنت قرب جوكسته عن ملك اليهود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا ذلك الدين تا بس دقيستيال ونكسن ما نقولنا يا دقيستو ونكسن لو حكوا ونكسن دقيستوا من الدين ويان لكن وحال الله إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيبت هذا وكقاضته وتكقاضا كرتا صحابة رسولكو نول بسلاحية دي لهي وقليي ومدو كوان فعي كي علم لها علمك ومدو وحكو تري كي دغال لها دغالو ومدو وحكو تري كي رغنما لها رغنما ومدو وحكو تري كي وجاهد لها وجاهد دي سو ومدو وحكو تري اسماء بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركز صلح الحديبية وكعذر دارت عمر وعدانيك ما يقول عثمان باكون مناسبة بودي عثمان باكون مناسبة عثمان بن النبي يقول دل ورنتي عثمان هذا قلت خالد بن وليد جيس النمدي يرجع النمدو لها ومدو وحكو تري ما أنتوا سوى إسلامي بن النبي سيفت أوكيني سيفت نيجا قبض بودي لا هنا دمدا في ويدي ما عن كاكا هذا سيفت يشك أنت أصلا مسلمين كلها يبو كيدي كاقادم معي أنت المسلمين كلها يسي إن كبدا إن العدو إلهي كل إنسان كاقر رجيني طالبوا لسيفتوا إلهي دين تسوي جهاد والله رجعني ما دي بحاجة كلا الله بدل بس كي عالم كها علمك ومدى كو أنفعي كي دقال لها دقاليه سو مدى كو أنفعي زمن كي نبينا عليه الصلاة والسلام وحو نبي ديارية أمد نول بسلاحية كجرتا لو استعمال يدين تدذلك مركا إنكونا كل جين إن شاء الله تعالى خير باين نجم مغدا خير جعل باين نجم مغدا ده إن شاء الله دذلك الدين تا لنا عكستبه دذلك الدين تواليه والله ورنتان النشاقي معلن كقرآن كدقة دذلك الدين تقيب تسيبك هيا شيخ مساجد كدرسك أمد مرينا يا دذلك الدين تقيب تسيبك هيا
jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan karaa wa'tasimuu bixablillaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kalimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannadu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysa anu marti kuma hiya waan deganahay ya deganahay ma sha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل